maxamuud cali saleebaan ramaax oo warbaahinta la hadlay koor intii aan la xidhin waxa uu markii ugu horeysay uu shaaciyay in madaxweyne Muuse Biixi walaalkii ugu hanjabay dil toogasho ah isla markaana maanta loogu yeedhay waaran lagu xidhaayo ramaax ayaa cadeeyay in hanjabaad iyo xadhig toona aanay baqan geli doonin isla markaana ay markasta sheegi doonaan dhaliilaha ay xukuumaddu leedahay isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri saaxiibayaal imikaan soo galay socod baan ahay waxa inoo jirtaa 100 talaabo xaruntiisii ay dhiida waana inuu tagi doonaa waxaan diiday in la igu soo diro gurigeyga askar iyo la ilaado meel laga soo qabto haddaan tagaynaa xaaladda wixii jiraan xaaladdu waa mid xaqiiqo aan ka hadlayaa saaka isaga cadeeyay madaxweynuhu inuu waarakaasi jiro maaha anigana de way soo sheegeen hadduu xafiisku kuugu yeelo si sharciyana inaad timaado waa waajib mala qaar hore arkeen oo ka yara baqaa marka waaran iyo wax la soo qaadee dalku sharci buu leeyahay ninna looga tagi maayo maalin baa waxa lagu yiri in cigaalo xamar ku sii socda lagu xidhayaa maxaad ka doonaysaa wuxuu yiri dalka looga tagi maayo maxamed siyaad bare looga tagi maayo waan leenahay Muuse Biixi hanjabaadiisa uga tagi mayno halkan aniga waxa hor u dhacday anigoo aan cabin inay wada garanaysaan ramaaxa oo xabadaydana gaariga iigu jirto oo sita ayaa walaalkii iigu hanjabay xabad baan kugu dhufanay laakiin waxba lama soo bixin hore uma sheegin waxaan u rag baana marxaatiyaal ka ahaa waxaan u qarinay deena yaroo walaalkii soo diray ayuun baan u arkay sidii caadada u ahaan jirtay waxa dhacday halkaas suuqa gargaar mafrishkayga halkaan ku leenahay in lay dhigay qori iyo inaan askari ah oo meeshu ka tirsanayeen la yaqaano runtii rag badan baa ogaa odayaal badan baa ka howlgalay faafinin baa leeyahay way jirtaa cagajugleyn iyo hanjabaad fara badan iyo maxaad ku leedahay dawladdeeda inama yaryar oo imika la soo baxay oo edab daran waa kuwan maalintii hore sheegay aan naaskii hooyadood ayaa qoyan tan wixii loo soo looga tagi maayo xukun kasto xun looga tagi maayo dalka la badbaadinaya xaq baan u leeyahay inaan sheego wixii qaldan haddaan idhi baashe wuxuu leeyahay xidhiid markuu inamada lahaa taga muxuu jeeday warno ummaddu ha ka garnaqdo dulmiga imika anaga la isleeyahay xusbiyada ku cadaadiya shicibkana wuu haystaa waa ka baloodhadooda lagu qabsanay waa ka lagu haysto muxuu hebel sidaasi u yidhi muxuu hebel dawladda u soo hadal qaaday waa dawladdeeniye waa tii uu lahaa haddii loo codeyn waayo hebel dhirbaaxaan ugula tegaya nin walbaana dhirbaaxayoo qoladaa sheegtaa waad ku jiri maaya dalku marxalad xun ayuu maraya annagaa nidhi sheegnay caddaynayna dalku sharci buu leeyahay looga tegi maayo koox yar oo aan cidna ahayn oo argoosia looga tegi maayo waa ogeydeen inta mas'uul ee ku tilmaamtay xukunka maanta jira inkastoo anagu iraado de qudbadiisaba bay inoo dhameeyay oo maalintii ugu horeysay markuu yiri fartayda eedaye bay doonan nin waliba hafisho dukaan la xidho nin la iska xidho mid suuqa xabad lagu dhufto mid lagu bureeyo intuba way imanayaan laakiin guushu wuxuu bay raacaysaa xaqu dirarku bay raacaysaa nin la lagaga adkaado adeer maxamed siyaad barraa cidna waxba kaga qaadi waay inay baa waxba kaga qaadi waay waxay maanta u egtahay xukuumadda taagani xukuumaddii inay bay u egtahay inay bay u egtahay haddii intaan la jaraayo xaqiiqadaanu sheegaynaa lacagtii dekadu miisaaniyadda kuma jirto saacado caddee waa ilmaadeer baa qaarleeyihiin oo waa reer hebel war dadka ha raacinina ummaddu way aragtaa waxa meesha ka taagani ummaddu way aragtaa inay yar habeen hadlaysay ayaan aad runtii ula yaabay war dadku samaysanaya waa reer mudabada geliya qofku markuu qalad kasto oo dhan soo dhameeyo reerka la sheegayaa baanu nahay kumana raacsanin wadadii baanu leenahay waxay noqonaysaa dhaamkii maxamuud xaashi 16 milyan galay waxa tan inagaga si khasaaro badan baabuur kasto oo mara maanta 70 kilomitir baa la qaaday waxay ahayd marka 5 kilomitir la qaadaba in 5 la inoo dhigo teeni hore waa la baabiyay wadaanu naano waa hal laga daayo dalka sidan oo wixii hal la qabto meenu qaldanahay waxaan hore u sheegnay
gawaadhidii dowladda ee dowladda hoose hargeysa ah wada arkaysaan godadkeeda iyo boholaha magaaladii ka dhex dilaacay in shirkadda laga kareeyey ilaahu naxariistayna cigaallo wuxuu ka dagaalamay ku eriyey maxamed xuseen in la odhan jiray oo berigaa dee ay aada u jeclaayeen reer burco ayuu yidhi makiinadii wax jeexaysay halkan buu dhigtay gaadhigii xashiishka qaadayeyna isagaa leh kaalintii shidaalka ku shubaysayna kulli dowladda hoosu ku wada qoray waxuma ismuu lahayn ninba waxqabadku sibuu ugu muuqdaa nin aada u wanaagsan buu ahay oo runtii dalka la xajalo kale maxamed xuseen laakiin ciyaal wuxuu yidhi maxaa shicibka aan waxba haynin in shidaalka iyaga laga iibsaday ilaa cashuurtii iyaga laga soo qaaday waa example fiican waxyaabo badan baan xusuustaa runtii haddii aan topica galo wuu ila dheeraanayaa wuxuu yidhi kii faaladda jeexayey soo kan faaladii dowladda hoose rag baa yidhi maxaad ninka wanaagsan u erid wuxuu yidhi waxaan u eriyey faaladan inuu halkan dhiga may ahayn inuu kontaraaga bixiyo ummadda siiyaabay ahayd si iyagaa cashuurtii laga qaaday ay dub ugu noqoto oo ay u wareegto waxani laakiin hadday gacan keliya ku aruurto sida tamaanta taagan ee ka taagan dalkan ka taagan ma waxa laga adkaystaa waanu sheegaynaa miisaaniyaddii baanu ka hadalnay wasaaradii baa gebigoodiiba fadhiida shaqo socotaa ma jirto meheradii baa wada kacay hay-adii baa iska wada tegey haddaanu nidhaahno waarkadaa dalku ku dhaqmi maayee ma waxa weeyaan jeelka soo gal mayna biixiyo u hanjabaa waaniga nina waxba iga qaadi maayo gurigaa laygula soo galay qoriga waa ogeyd intii ugu dambaysay ergaabaa nalagu weeraro berberaa nalagu weeraro shiikh baa nalagu weeraro waanu soo taagnayn kuwii horena waanu ka qayb galnay mar aanu naftayda difaacayna iyo mar aanu lahayn dalkaba dhiciya marka adeero halkaan ka sheegi waayo waxyaabahaasi dee adeer fulay mihi hadday ugu dhacdana dhaawacayga la arkaba waanu dhiman haddii kalena haddaan isdifaaci karana waanu isdifaaci laakiin waxa weeyaan dadka shicibka ahee noocaa lagu samaynayo ama hebel muxuu noo hadalayaa ama muxuu yaa laga sheeganayaa tan waar yaa tan iga sheeganaya iminkaan taaganay xabarii dagaag waa maqlayseen wixii ka taagnaa shalayto 6 kilomitir bay inoo jirtaa waxa ka taagan wajaalay waa ogtiin waa la wada socotaan halkuu marayaa dalkii annagaa leh hogaamintii kulmiye wuu la bayray maxkamaddii badbaadada ha samaysto hadda hana saanudila nagu xukumo diyaar baanaanu nahay Mouli Ismail shabakada wararka News magaalada Hargeysa.